Asalaamu calaykum. Qisada dhiirigelinta ma lagu diiday ama ma lagu niyad jabiyay marar badan. Colonel Colonel Sanders, aasaasaha shirkadda KFC, ayay sidaasi ku dhacday marar badan, laakiin waa nin guuldarooyinkiisa qaatay, qalbigiisana ka ilaaliyay inuu bedelo niyad jabka sida liintaba biyaha loogu bedelo, adduunkana ka dhigay meel wanaagsan oo ay macquul tahay in dhalintu guul ku gaarto. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa qisada dhiirigelinta ee Colonel Sanders, aasaasaha shirkadda KFC. Ku soo dhawaada. Sanders waxa uu ku dhashay Hanfield Inn 1890kii. 6 jir markuu ahaa waxaa geeriyooday aabihii, taas oo ku qasabtay in uu daryeelo walaaladii kuwa oo ka yaryaraa. Iskoolka ayaa laga ceeriyay markuu ahaa kalaaska 7, waxa uuna ka tagay guriga si uu uga shaqeeyo beeraha, kadibna uu uga helo wax yar oo ay noloshiisa ku sii socoto. 16 sano markii uu jiray waxa uu ka been sheegay da'diisa si uu ugu biiro ciidamada Mareykanka, waayo ciidanka Mareykanka ama ciidanka wadamada oo dhan waxaa la ogol yahay in qoftu uu ka wan yahay 18 sano, balse sanad kadib waa laga saaray, waxa uuna ku biiray shaqaalaha wadada tareenka, laakiin waa laga ceeriyay markii ay isdagaaleen shaqaale kale. Waxa uu isku dayay inuu barto sharciga ama law, laakiin xirfadiisa oo dhan waa ay burburtay kadib mar kale uu dagaal kala sameeyay, waxaana lagu qasbay inuu u laabto hooyadii oo markii horeba uga soo tagay in noloshiisa uu wax ka bedelo. Laakiin waa nin silsiladaha guuldarrada aan waxba u dhimin, sidaasna aan ku niyad jabin. 1920kii waxa uu aasaasay warshad samaysa doomaha. Sanado kadibna waxa uu isku dayay inuu iibsado warshad kale oo samaysa laambadaha nalka si uu wax badan u helo, waayo qofka baahani ma istaago. Mr. Sanders markan waa 40 jir aan wali quusan. Markii uu 40 sano gaaray waxa uu bilaabay in chicken ama digaag diyaarsan oo isagu kariyay uu ku iibiyo xarumaha bulshada loogu adeego iyo geynta albaabka guri walba, una xayeysiiyo meelaha bulshadu ku badan tahay si dadku u bartaan adeegiisa. Waxa uuna u magac daray KFC, uu u soo gaabiyay 3 eray: Kentucky Fried Chicken, taasoo micnaheedu tahay Kentucky waa magaaladii uu xilligaasi ku noolaa, iyo Fried Chicken oo micnaheedu yahay digaag duban ama digaag diyaarsan. Waxaa ka hor yimid caqabado fara badan oo ay ka mid tahay tartan dhanka suuqa ah, waxaana mar ay muran iyo dagaal bagaleen nin kale oo kula tartamayay suuqa, taas oo markii dambe sababtay in xabsiga la geeyo. 4 sano kadib waxa uu iibsaday hotel aad u yar. Nasiib darro waa uu gubtay, laakiin waqti kuma qaadan oo durbo waxa uu furay hotel kale oo ka agsameeyay xaruntiisii yareed ee KFC. Dagaalkii labaad ee adduunyada ayaa qarxay, kuna qasbay inuu iska xiro kadib saameyn weyn ee ku yeeshay dagaalkaas. Inta uu socday dagaalkii labaad waxa uu isku dayay inuu ballaariyo ganacsigiisa, laakiin waxaa loo diiday inuu samaysto wakiilo ku shaqeeya magaca maqaaxidiisa yareed ee KFC. Maalmihii hore qof walba ma rabin cunadan diyaarsan oo waxa uu la kulmi jiray diidmo, laakiin ugu dambeyn waxa uu yeeshay macaamiil suga digaaga diyaarsan uu sameeyo Mr. Sanders. Magacaas gaaban oo isticmaalayay ayaa noqotay siraha midda ugu weyn uu horumarka u sameysay shirkaddan. Waxaa caan noqday shirkadiisa, waxa ayna ku faaftay waddanka oo dhan, waxaana ka shaqo bilaabay shaqaalo badan. Sanado badan oo guuldarrooyin iyo nasiib darro ah, KFC waxa ay ku faaftay dunida oo dhan, waxayna noqotay shirkad caalami ah, waxaana uu ku iibsaday $2 milyan, taas oo qiimo ahaan la mid ahayd $15 milyan oo maanta ah. Sidaas uguma faaruqin Mr. Sanders shirkadda KFC, oo weli loogada KFC waxaa ka muuqda wejigiisa, waana ambaasadorka shirkadda KFC ee adduunka oo dhan. da'da 90 markuu gaaray ayuu geeriyooday
xilligaas xarumaha shirkadda KFC waxay ahaayeen 6,000 oo xarumood oo ku kala yaala 48 waddan oo caalamka ka mid ah. 2013 waxaa la qiyaasay in ay gaareen 18,000 oo xarumood oo ku yaala 118 waddan oo caalamka ka mid ah. haddaba maxaan ka baranaynaa? haddii aad la kulmayso diidmo ama niyad jab joogto ah, sidii aad hore uga socon lahayd, waa inaad xasuusataa Bernard Sanders, kaasoo laga ceeriyey shaqooyin xad dhaaf ah, lana burburiyey mihnadiisii. uu haddana la kulmay saamayntii dagaalkii labaad ee adduunyada. haddana waa mid ka aasaasay silsiladda cunnada fudud ee ugu ballaaran adduunka oo dhan.